erayadeennu aad bay u awood badan yihiin waxayna saameeyaan qayb kasta oo nolosheenna ah. ha ka eeginuun waxaan sheegayo marka aynu dadka la dhaqmayno ama sidaynu dadka ula hadalno iyo waxaynu nidhaahno iyo erayada inaga taga ee aynu dadka ku nidhaahno, laakiin waxaad ka eegtaa erayada aynu kula hadalno nafteenna, aynu nafteenna ku sharaxno. fikirkeenna iyo sidaan u fikirnaa wuxuu saameeyaa waxaan ku hadalno, oo qofka hadalkiisa iyo erayadiisa waxa haga fikirkiisa iyo wuxuu maskaxda ku hayo. haddii fikirku uu erayadaada saameyn ku leeyahay, erayada aad isticmaashee badanina sidoo kale fikirkaagay saameyn ku leeyihiin. aad bay muhiim u tahay inaan u fiirsano erayadan u isticmaalno nafteenna, maskaxdeenna dhexdeeda markaan ku sheekaysanayno erayadeenu isku isticmaalno. qaabkaad naftaada u sharaxdid, qaabkaad naftaada u cabirtid, erayadaad naftaada ku cabirtid. waxba la yidhaahdaa waxa ugu weyn ee kaa xiga noloshaada qaybta ugu quruxda badan waa sheekada aad naftaada uga sheekayso ee ku xadidaya ee maaragtay limitinka ayaaba kaa xiga noloshaada qaybteeda ugu quruxda badan leh. erayadeenu awood bay leeyihiin. afku wuxuu la xoog yahay magliga hawda kaa jara. erayadaad naftaada kula hadashid saameyn weyn bay ku leeyihiin maankaaga, maskaxdaada iyo sidaad isku aragtid. markaad tusaale ahaan leedahay ma qaban karo, waxaad soo xidhay albaab maskaxdaada ka mida oo ka fikiri lahaa suurtagalnimada waxaa ama isku day horseedi lahaa. markaad leedahay maxaanahay maaragtay waxba ma qaban karo, cidi caawisa ma haysto, erayadaas negatifeka oo dhan badankoogu waxay toos maskaxdaada ugu sheegayaan inayna maskaxdaadu isku mashquulin waxa helidiisa. waxaad u bedeshaa erayada su'aalo, waxaad isku weydiisaa qaab kale. ma qaban kara intaad odhanaysid waxaad tidhaahdaa sideen u qaban karaa. intaad odhanaysid ma karo waxaad tidhaahdaa sideen u karaa. intaad odhanaysid waa qaali waxaad tidhaahdaa sideen u iibsan karaa ama sideen u awoodaa. markaad sidaa u bedeshid erayadeennu caqli baadinkeenna saameyn weyn bay ku leeyihiin. markaad leedahay ma qaban karo waxaad xidhay oo maskaxdaada ku amurtay inayna isku mashquulin waxa. laakiin markaad tiraahdo sideen u qaban karaa waxaad maskaxdaada weydiinaysaa su'aasha ah how, sidee. maskaxdaaduna waxay isku mashquulinaysaa inayd raadiso suurtagal ahaanshaha iyo sidii ay u suurtagelin lahayd. waxay raadinaysaa dariiqyadii ay waxaasi ku suurtageli lahaayeen, oo marka dambe waxay ku tusaysaa waxyaabaha la qaban karo si ay u suuro gasho. erayadeenu waa powerful, aad bay awood u leeyihiin, saameyn weynna way ku leeyihiin qayb kasta oo nolosheenna ka mid ah. erayadan nafteenna kula hadalnaa ama aan nafteenna u isticmaalno si aan u qeexnaa waxay wax ka bedelaan qaabkaynu nafteenna uga fikirno. sidaynu nafteenna uga fikirnaana waxay wax weyn ka bedeshaa waxaynu nafteenna ka dareenno iyo istiimkeena. sidaad isku aragto, sidaad naftaada ka dareemayso, sidaad ismoodayso, qiimahaad naftaada siinaysa wax weyn ka bedeshaa. sidaad naftaada ka dareentaana waxay wax weyn ka bedeshaa sidaad wax u qabatid, howlqabadkaaga. oo howlqabadkaagii sidaad wax u qabatid waxa haga sidaad isku malaynayso iyo sidaad iska dareemayso. howlqabadkaaga oo isbedelaana wuxuu bedelayaa sida dadka kale kuu perceive gareeyaan, sida dadka kale mujtamacaad ku dhex nooshahay ku arkaan. waayo qof walba qisadiisu waa natiijooyinkiisa, qof walba qisadiisu waa waxa uu qabto, qof walba qisadiisu waa shaqada uu sameeyo. howlqabadkiisa lagu bartay ayaa qeexa qofka. erayadaynu afkeena ku leenahay iyo waxaynu ka hadalnaa saameyn laxaad leh buu ku leeyahay qofka aynu nahay iyo tayada nolosheena. aynu u fiirsan erayadeena. isbedelka noloshaada aad la damacsan tahay wuxuu ka bilaabmaa qaabkaad u hadashid, erayadaad isku isticmaashid, maskaxdaada dhexdeeda markaad ka sheekaysanaysid, erayadaad iskula sheekaysatid, qisadaad naftaada u sheegaysid. erayadaada u fiirso. weliba aad ha iskugu weynayn erayada dadka kaaga taga, kuwa adiga kaa tagaa ka muhiimsan, kuwa adiga kugu taga ee adiga kugu socdaa ka muhiimsan waxaasoo dhan.
aad ugu fiirso ereyadaad naftaada u isticmaashid because waxaad isku tiraadidi waxay saameynaysaa sidaad iskaga fikirtid waxay saameynaysaa sidaad iska dareentid waxay saameynaysaa sidaad wax u qabatid waxaad qabatidna waa qisadaadi waxayna ku bilaabmaysaa qaabkaad naftaada uga hadashid iyo waxaad naftaada kula hadashid iyo ereyadaad isku isticmaashid isbedelka noloshaada oo dhan wuxuu ku bilaabmaa bedelidda ereyadaada oo aad awoodid oo ah awood aan adiga lagula lahayn